Cilmi baadhis dhowaan la sameeyay oo lagu ogaaday ragga qaba dumarka cayilan amaba buurbuuran in ay ka farxad badan yihiin kana cimri dheer yihiin ragga asaagooda ah. Daraasad ay si wada jir ah u sameeyeen Dr. Filmon iyo Dr. Edgardo Morales oo ka tirsan qaybta cilmi nafsiga jaamacadda UNAM ayaa lagu ogaaday in ragga qaba dumarka buurbuuran ay helaan nolol ka farxad badan kana cimri dheer ragga kale. Inta badan dumarka cayilan waxay la kulmaan eedooyin dhanka bulshada ah oo ah inaanay soo jiidasho lahayn, waxaana lagu dhaliilaa dhanka muuqaalkooda iyo jidhkooda intii la eegi lahaa caqligooda iyo fikradahooda iyo waxay aaminsan yihiinba. Bulshadu waxay ku mashquushaa buurnidooda, waxayna bulshadu u taqaanaa kuwo caajis badan oo aan waxba ka qabsan karin howlaha guryahooga. Dumarkan ayaa dhibaatooyin kala kulma. Waxaa jira dadka qaar oo kula kaftama hootayaa ku guursan doona iyo ereyo la mid ah, iyadoo ay jirto in raggu inta badan ay ka cararaan dumarka cayilan. Ayaa haddana daraasadan cusub ay tilmaamaysaa in ragga qaba dumarka cayilan ay inta badan helaan nolol farxad badan oo waqti dheer leh. Daraasad ayaa tiri ragga dumarkoodu cayilan yihiin qosolkooda iyo farxadoodu way badan tahay. Mushkiladaha sida loo xaliyana ragga kale way kaga fiican yihiin marka loo eego ragga qaba dumarka caatada ah. Sababta ayaa lagu sheegay in dumarka cayilan ay yihiin kuwo inta badan raggooda u dhaga nugul, taas oo ka dhigaysa in raggoodu ay ka farxad badan yihiin 10 laab ragga qaba dumarka kale ee dhuudhuuban, wayna ka cimri dheer yihiin ayaa lagu sheegay cilmi baadhistani. Daraasadda ayaa dhanka kale lagu sheegay dumarka caatada ah in ay ka xidhan yihiin kana kalgacayl yar yihiin dumarka buurbuuran. Si kastaba, daraasaddan ayaa salka ku haysa dhaqan ay Soomaalidii hore aaminsanaayeen oo ahaa in gabadha iinta leh ay raggii hore si weyn u baadi goobi jireen maadaama ay ka daacadnimo badan yihiin raggoodana ay ka ilaashaan og yihiin kuwa kale.